ogtahay in ay muslimiintu aasaaseen magaalada Madrid ee caasimadda waddanka Spain kaliya ma ahan inay aasaaseen sidoo kale magacana iyaga ayaa u bixiyay waa ciwaanka sheekada aynu kaga hadlayno muuqaalkeena maanta inta aanan gudagelin warbixintan daawadaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube-ka oo aad subscribe saarto sidoo kalena haddii aad ka heshay muuqaalkan aad like saarto si aan u ogaano bal kuwa ay yihiin muuqaalada ay saaxiibadu xiiseeyaan oo aan u soo badino mahadsanid magaala madaxda xudunta u ah waddanka Spain waa mid ka mid ah goobaha loogu dalxiiska badan yahay caalamka waxayna caan ku tahay naqshad dhisme oo aad u heer sareeya qasriyaal barxado waaweyn iyo kaniisado qadiimi ah waxaana sanadkii soo booqda dad ka badan 10 milyan laakiin dalxiisayaasha ajnabiga ah ee magaalada booqda waxa intooda badan aysan ogeyn in magaaladan Yurub ku taala ay asalkeeda Carab aasaastay waxaana daliil u ah in ilaa iyo maanta magaaladani ay wadato magac Carbeed magaca Madrid waxaa lala xiriiriyaa xukunkii islaamiga ahaa ee dhulka Andalus ee casrigii dahabiga ahaa waxaana aasaasay amiirkii Qurduba amiir Maxamedkii koowaad isagoo dhismihii ugu caansanaa ka dhisay dusha sare ee buurta Wadi Ramlah waxaana daanta midig halka uu maro webiga Manzanares ee 92 kiiloomitir dhirirsan ka taagay qasri aad u qurux badnaa waqtigaasi waxaa magaalada Madrid loo yaqaanay magaca Madrid waana erey ka kooban laba qaybood oo macnaheedu yahay halka ay maraan qulqulka biyaha aadka u faraha badan waxayna taasi tilmaan u ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay magaaladani caanka ku ahayd xilligii Andalusiyiinta aad ayay u ballaaratay magaalada Madrid ilaa ay noqotay mid ka mid ah caasimadihii islaamka ee ugu magaca weynaa dhaqaale ahaan iyo qurux ahaanba waxaa laga dhisay masaajidyo fara badan waxaana loo doonan jiray culuumta islaamka iyadoo magaaladani ay ku qulquli jireen ardayda iyo baarayaasha kala gedisan inamadii ka soo jeeday magaalada Madrid waxaa ugu caansanaa Abulqaasim Maslamah al-Majridi oo ku takhasusay xisaabta kimistriga iyo cilmiga xidigaha waxaana Abulqaasim uu magaciisu aad u shaacay qarnigii 4aad ee hijriyada ilaa loo aqoonsaday macallinkii xisaabta Andalus waxay sidaas ahaataba magaalada Madrid markii ay burburtay Andalus waxay gacanta u gashay boqorkii Castile Alfonsihii 4aad sanadkii 1085 muslimiin aad u fara badan iyo yuhuudii deganayd magaalada Madrid ayaa isaga cararay waxaana masaajidii magaalada loo bedelay kaniisado si loo tirtiro xadaaradii islaamka ee Spain waxay Madrid noqotay caasimadii boqortooyadii Castile sanadkii 1560 kadib markii uu boqorkii la oran jiray Philipkii labaad uu magaalada u soo raray qasrigiisii kana dhigtay halka uu degan yahay boqortooyadii islaamka ayaa waxa ay dhulka Andalus xukumaysay 780 sanadood taasoo ah waqti ku dhow 8 qarni waxaana magaaladii ugu dambeysay ee ka baxday gacanta muslimiinta ay ahayd magaalada Granada ee koonfurta waddanka Spain raadadkii hore ee Carbeed ayaa ilaa iyo maanta weli ka sii muuqda magaalada Madrid ee caasimadda waddanka Spain inkastoo taariikhda magaaladan iyo magaceedaba in ay islaamku lahaayeen aysan la socon inta badan dadka haatan ku nool magaaladaasi iyo waliba kuwa u dalxiiska taga daawadaha qiimiga badan oo waad ku mahadsan tahay inaad nala soo gaartay gabagabada muuqaalkeena maanta walaal haddii aad in yar ka kororsatay muuqaalkan like saar haddii aadan hore noola joogin oo aad tahay saaxiib cusubna soo dhawow oo subscribe saar kuna soo biir barteena YouTube aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waa inoo bari iyo muuqaalkeena xiga insha Allah